laga bilaabo caawa waxaan nahay bini aadam dawladda Soomaaliyeed ayada oo ka tarjumaysa xukuumaddu visionkii ama aragtidii madaxweynaha waxay number 1 shaqada laga rabo inay qabato ka dhigatay amniga amni la'aan wax la qaban kara ma jiro waa ku qanacnay magaaladan waan soo joognay anigu nin reer xamraan ahay way taqaanaan waxaan u malaynayaa 10kii qof ee xamar isugu timaadaba ama iskuul baan nahay ama isku jaamacad ama macallin baan u ahay aad baan u aqaanaa xamar xaafad aanan wax ka soo dhigin oo macallin ka soo noqon ama aanan soo fariisanin malaha kaxdo iga dambeysay baa jirta laakiin inta kale aad iyo aad baan isu garanaynaa aad iyo aad baan u aqaanaa waxaan dareemayaa oo garanayaa baahida aad qabtaan waxaan ogahay duruufaha aad ku nooshiin anigu kama imaanin meel kale hawada kama soo degin dibad kama imaan waxaad ku nooshiin baan ogahay halkaan aan wax ku bartay oo iskuul kaga baxay mujammac mulqura baan ka baxay waxaan xusuusanayaa inaan u soo lugayn jirnay waxaan xusuusanayaa inaan isbaarooyin ku dhici jirnay mararka qaarkood wixii ka dambeeyayna maraan dalka waxbarasho dibadda uga maqnaamo intii kale halkaan aan joogay halkaan aan ku guursaday ku dhalay degay magaaladan waa magaaladeydii magaalada muqdisho duruufaha ay ku nooshahay iyo dadkeena duruufaha ay ku nool yihiin aad baan ogahay waxaan ognahay sida ay wasiir Khadiija sheegtay inta xukuumadood ee nagu dul dhalatay ee haddana nagu dul burburtaan ogahay waxaan ogahay sababaha burburiyay iyo sababaha ay la dhaqaaqi waayeen ayaan ogahay waxay ahayd koow ayaga oo laga yaabo inaynaan hadda ka hor serious ka noqon maxaa priority inoo ah number 1 amniga aynaan serious ka noqon oo laga yaabo inaynaan go'aan gaadhin xukuumad iyo shacabba in aynu ka bilowno amnigeena aan gacanteena waliba aan inagu ku maamulan hadda ka hor go'aanka inaynaan gaadhin bay u egtahay qodob buu ahaa qodobka labaad oo xukuumaduhu la dhaqaaqi waayeen oo burburba keenay wuxuu ahaa midnimo la'aan iyo khilaaf aad ogtihiin waxa uu soo sameyn jiray khilaaf dhex yaala hay'adaha dawladda madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku dhagan xukuumad iyo baarlamaan isku dhagan ummad isku wada dhagan dawlad goboleedyo iyo dawlad dhexe isku dhagan khilaafkaas wuxuu sababay oo uu keeni jiray in aysan xukuumaduhu dhaqaaqin in shaqadii la rabay in la qabto la qaban waayo in ayada awoodii la rabay in khawaarijta la iskaga celiyo in ay keento qolo waliba hebel iskaga celi deedna halkaas ay ku dhamaato siduu ilaahay sheegay oo deedna ay ku dambayso siduu ilaahay baynoo sheegay wa atiicu allaha wa rasuulahu wala tanaazacu fatafshalu watadhhab riixukum oo haddii aad dagaalantaan dhexdiina waad fashilmaysaan kadibna awoodiinu way tagaysaa waad burburaysaan halkaas ay ku soo gabagaboobaysay maanta ilaahay wuxuu naga caafiyay midaas waxaan ku guulaysanay in aan garanno boogta iyo meesha laynaga hayo horta inaan taabano si dhab u taabano dhahana waa amni haddaynaan amni sugin wax kale inooma suurtoobayo saa darteed inoo laalaab waxa kale oo dhan gadaal inoo dhig amniga aan aadno innaga iyo nimankan amniga hortaagan aan farahaysa saarro oo yaa la dagaalamaya oo nimanka iska bixinaya waa shacabkeena aan abaabulno shacabkeena aan kicinno gabdhaheena aan dhahano idinkaa ku filan iska celiya because dabaabada ma wataan marka waxaan garanay oo farta ku fiiqnay meeshayna xanuunaysa iyo dawadaan u baahannahay amni darra in haysa amni baan u baahannahay amni si aan u helo waxaan u baahannahay sacrifice iyo inaan nafteena hurro waxaan halkan uga mahad celinayaa
mujaahidiintii halkan soo istaagay oo uu kow ka ahaa wiilkii wariyaha ee duulaan tagay ee jihaadka soo galay ee ku soo dhaawacmay intii ku dhimatay ee kale ee saaxiibadiis ahayd waa shuhado ilaahay ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay ha uga boogadhayo asagana waa geesi asaga iyo inta la midka ah waxaanan u ognahay geesinimadooda waanan u ogaan doonaa waana garab taagannahay geesiyaal baa tiin baan leeyahay microphone-kiinu wuxuu ka xoog badan yahay suuga iyo baroonta iyo dhashiikaha asaga ka xoog badan aad baad u mahadsantihiin sidaa darteed baa waxaan dhahaa anigu laba wasaarad gaashaandhig baan leenahay wasaaradda gaashaandhigga ee traditional la yaqaano iyo wasaaradda warfaafinta marka wiilasha iyo gabdhaha warfaafinta ka shaqeeyay waa mujaahidiin waxayna dalka u hayaan kaalin aad iyo aad u qiimo badan ayay u hayaan waa mahadsantihiin waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa walaashay farxiyo oo mujaahidad ah oo diiday in inta mid khawaariji soo gudbo oo gurigeeda ka tallaabo iyadoo dhowraysa walaalaheed oo amnigeeda sugaya oo ag fadhiya in inta loo tallaabo bamba la dhex dhigo oo deedna ay meeshaas ku dhintaan way diiday waxay ka doorbiday inay iyadu dhimato oo walaasheed khadiijo oo mujaahidadii ay ku shahiido oo ay caruurteedu ku dhaawacmaan ayay ka doorbiday waxaan leeyahay farxiyo qarankaagu taas waa ku ogyahay adiga iyo caruurtaada iyo ahalkaagabana waa daryeelaynaa waana idin ognahay kaalin qiimo leh oo taariikh leh ayaadna ka gashay xoreynta iyo soo celinta nabadgelyada dalkaaga aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaasheena shahiidad weeye ilaahay ha u naxariisto waxaan u mahad celinayaa wiilashii geesiyaalka ahaa ee halkan wiilkii inooga sheekeynayay sida uu ku qabtay khawaarijtii rabtay inay dilka geysato ama dilka gabaysatay baa kaaraan ka geysatay suuqa kaaraan iyo mujaahidiinta kale ee sharafta leh ee walaalaheena reer Dayniile dhalinyaradaas ayagana waan salaamayaa waxaan leeyahay waxaad qabateen wixii waajibka ahaa waadna ku mahadsantihiin waana idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabka reer Banaadir waxaan leeyahay hadda ayaan soo gaarnay meel aynu mudannay ilaahay nasrigiisa iyo ilaahay inuu inoo heliyo sababtoo ah ilaahay wuxuu yidhi in tansurullaha yansurkum hortay adigu isa soo gaarsii meel uu ilaahay kaaga heliyo isa soo gaarsii adigu wax aad awoodo qabo ilaahay markaas uu ku qabanaya hadda ayay yimid nasriga ilaahay markuu ilaahay niyadeena arkay markuu ilaahay arkay inaan diyaarnahay markuu ilaahay arkay inaan nafteena hurayno waa kuwaas geesiyaashii gabdhaha iyo wiilasha isugu jiray ayaga oo gacmo maran khawaarijta la aaday waana geesinimadii lagu yaqaanay shacabka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii habeen iyo maalin u taagan dalkan sidii uu nabadgelyo u noqon lahaa gaar ahaan caasimadda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guushaas aan caawa ku naaloonayno waxaa keenay dhowr shay ilaahay baa keenay marka koobaad ha yeeshee waxaa keenay oo ilaahay sabab uga dhigay horta marka koobaad siyaasad cad annagoo ka duulayna aragtida madaxweynaha in ay xukuumaddu ay dejiso siyaasad cad oo amniga caasimadda lagu sugayo siyaasaddaas waxaa loo tarjamay actions iyo ficil waa loo tarjamay waxaana hirgeliyey ciidamada amniga oo aan runtii wiilashaas halkaas fadhiya iyo taliyayaashooda oo aan u mahad celinayo oo aan leeyahay geesiyaal baad tihiin sharaf baad leedihiin karaamaad leedihiin taariikh baad samayseen aan horay u jirin waxaad mudan tihiin oo la isweydiiyey oo golihii wasiirada markay fadhiyeen maalintii ugu dambeysay khamiistii la isweydiiyey ciidamo waa jiri jireen booliis waa inoo joogi jiray
nabad sugid waa inoo joogi jirtay militarina waa inoo joogi jireen laakiin may dhici jirin sidan kow haddii xataa al-shabaab lala dagaalamo iyo khawaarijta mar walba waxaa jiri jiray shacabka ka soo yeeri jiray eed sheegasho laga sheeganayo ciidamada waxaa mar walba dhici jiray ciidamo isku dhaca oo la leeyahay ciidamadii baa dagaalamaya oo isku dhacay ayaa dhici jiray laakiin waa markii ugu horeysay ama koobaad oo ay timaado military iyo police iyo nabad sugid wada shaqaynaya si dhab ah oo habeen iyo maalin u taagan oo ayagu isku xidhan waliba kala amar qaadanaya waxaana waliba taariikhda dhicin military police ka amar qaadanaya hadda ugu horeysa waa sheeko cusub sheekadii cusbayd ee ilaahay nagu guuleeyay waxay noo dhashay natiijo cusub oo aan horay loo arag oo ah shacab iyo ciidan isku faraxsan oo gacmaha is haysta oo habeenkii soo wada jeeda oo wada shaqaynaya natiijadan ay keentay waxaan u mahad celinayaa saraakiisha waxaan u mahad celinayaa saraakiil xigeenada waxaan u mahad celinayaa ciidamadaas wiilashaas Soomaaliyeed iyo gabdhahaas Soomaaliyeed ee amnigan keenay gacmahooda ku keenay baan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa shacabka gobolka Banaadir ee la jaan qaaday ee la shaqeeyay ee soo dhaweeyay ee kaalmeeyay ayaguna runtii qaybta weyn ee laxaad kale ka qaatay maxaa jira dee kuwaan hadda arkayseen bay ahaayeen oo shuhadada ee u dhimanaya markuu wiilka askariga arko dad shacab oo sidaa yeelaya wuxuu ku dhiiranayaa inuu naftiisa huro iyo inuu shaqeeyo waxaan u mahad celinayaa madaxda dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee u hoggaansamay qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa hay'adaha garsoorka ee isha ku haya khalad kasta oo dhaca kadibna talaabo ka qaadaya iyo hay'adaha amniga intaba waan u mahad celinayaa waxaan rabaa walaalayaal inaan iraahdo shacab iyo xukuumad iyo ciidamadii amniga oo hal mar isla helay jiibta iyo jaanta ayaa meeshan iga muuqda marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa midkaan raadinayna waa midkaan la'ayn waana midka conditionka u ahaa ama shardiga u ahaa inaan si sharaf leh u noolaano oo sidaan hore u sheegay sida bani aadamkaan u noolaan laga bilaabo caawa waxaan nahay bani aadam marka sharaf baad leedihiin karaamaad leedihiin waxaanan haddii ilaahay yidhaahdo habeen iyo maalin la joogaynaa shacabkeenna waxaan tegi doonaa kaxda waxaan tegi doonaa dayniile waxaan tegi doonaa xaafadaha ugu fogfog haddii ilaahay yidhaahdo oo habeen iyo maalinba marba meel aynu ku soo dhaanta tumanayno haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baad runtii idinka mahad celinayaa intaas waxaa keenay nabadgelyada saan sheegay wada shaqayn waxaa keentay runtii ducada inaan ducaysano oon ilaahay weydiisano in ilaahay amnigeena sugo ayaa keentay marka guul baan ku taagannahay waan uga mahad celinaynaa in alla intay ka qayb qaadatay waa uga mahad celinaynaa gobolka Banaadir oo gudoomiyuhu horkacayo habeen iyo maalin ma seexan way ordayeen waxay la dirireen oo ka adkaadeen khawaarij waxay ka adkaadeen calaqley iyo khamrooley iyo cabtoy intaba way ka adkaadeen meel bay saareen gudoomiye waad mahadsan tahay adiga iyo gudoomiyayaashaada degmooyinka iyo agaasimayaashaada iyo dhammaan shacab weynaha reer Banaadir way mahadsan yihiin mahadsantiin intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo khatimo hadalkayga intaas
dhowr meelood baan taabtiraama rabaaye meeshaas waxaan rabaa inaan kaga soo khatimo khatartii weli way jirtaa malihin way dhamaatay isma dhiganayno ma seexanayno waa bilow ilaa aad aragtaan wasiir keligiis meeshaan degan ilaa aad aragtaan guryahan jajaban oo aad u cadcad oo nuuraya ilaa aad ka aragtaan xildhibaan iska xagga shisho degan oo kaydsanaya ag degan oo aan ciidan wadan oo aan bastoolad wadan ilaa ay muqdisho ku soo noqoto sideedii lagu yaqiinay magaalada caasimadaha Afrika caasimadda ugu degan dagaalka waan wadaynaa